bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa gabay la yidhaahdo somalilan oo uu hal abuuray abwaanka musishanka fanaanka mulaxamiistaha ismaaciil maxamed ismaaciil dulcad gabaygan oo magaciisa la yidhaahdo somalilan waxa uu abwaanku ku qaadi doonaa siiqadda ama codkii dahabiga ahaa ee abwaankii weynaa allaha u naxariistee cabdilaahi suldaan maxamed oo aad u aqoon og tihiin timacde waa farsamadii iyo duubistii maxamed haybe dhegaysi habboon hoyaalayey hoyaalayey hooye alla hooyey yaalayey hooyalayey saada gabaynagiiba uma tirin sadaradeedii ma samaynin waayahan intaan sabuun rugteedii masaluugo aadmigu ninkii sama ku baaqaaye waxse sababay baa jira inaan sareen u qaadaaye sabigiiyo dhallaankan rabaa inaan ku sooraaye taariikhda somalilan waa mid saafiya ee mase laguma soo koobi karo waxay soo martaa maase laguma soo koobi karo waxay soo martaa badan sitiinkii markii gaaladii sabada joogaysay inta ay saloongmeen shacbigu siiba heeryaday aqoon-yahan salaadiin cuqaal intii joogtay surinkeeda subax bay heshiis laba galeen saanacadaalihii sannadka haddii aan xasuus sibiq ka soo qaatoy wa markuwiina suldaanka nasiibka nasaar yidhi waa markuwiina suldaanka nasiibka nasaar yidhi sahaluma dhawaaqina su'aal buu hordhigay taase aan siduu yahay eegna buu ahaa sadarkii weynaa ee cabdilaahi muuseegi jirin midhaha suugaane sayidkii murtiday inuu ahaa baan cidiisa luugayne suuraddiisa aadmikii yaqiin ama maqal ku soo gaadhay saatir bay dhammaantood uga baryaan inuu siixsho jannadii saatir bay dhammaantood uga baryaan inuu seexsho jannadii waxba yuu hadalku ila sii silbanay balan ku soo laabto ujeeddadu halkay saaran tahay haddaan sibiq ka faalloodu aan sifeeya marmar bay murtidu saacid leedahaa sabigiyo dhallaankaan rabaa inaan ku sooraaye taariikhda somalilan waa mid saafiya ee manse laguma soo koobi karo waxay soo martaa badan afartaa sifeeyaya haddaan hore u sii dhaafo saqbar bay ku beegnayd xornimo saaridii calani subaxdaa haddii aan dadow sara warkeediiba la soo dhowey loona sacabtun lana sabaaleeye sagaal guuradeedii waatuu yimid safaadkii sannataynba isagoon joogin buu kibirsantaagune sansanjaahil weeyaan wixii uu la soo baxaaye raggii kaba salcaameys yidhi meesha kaba saaraa caynaanshiyo safkiisii waatuu sudhay tirkii sabigiyo dhallaankaan rabaa inaan ku sooraaye taariikhda somalilan waa mid saafiya ee maanse laguma soo koobi karo waxay soo martaa badan afartaa sifeeyaya haddaan hore u sii dhaafo haydhafkii kacaankii markii uu saldhigi waayey markuu beenshay suuradaha qur'aan iyo sayid rasuulkiiba calayhi salaatu wassalaam habeenkuu wadaadadii saxnaa saldhigyadii geeyey suuraddii nisaa iyo markuu ku yidhi beddela samadoodhaadiisa sidaan maqalku soo gaadhay waa kuwii saydhay amarkii ee yidhi sidaa doonta yeel xaqaa laabta noo sudhaan inta uu salaasuun la baxay waa kii seejay naftii
inuu kaba sii daruun mooye markuu kaba sorrayn waayey rag waatuu sahan tagay intuu soorta uga soomay siddeed markay maqnaayeen waatay soo galeen subaxe sahal laguma soo celin rag bow solay jidhkoodii eebbow sahal surin fardowsaadka ajiibo rabbow ducadan sido aqbal iigu soo celiye jidkii siraad ilaahow ku mari sida hillaaciye samaduba marbay furan tahay oo baryadu ay safaad gelinee gacmaha sare u taago shacbiyo aamiin iigu sii dara gacmaha sare u taago shacbiyo aamiin iigu sii daray sannad guuradeedii wataan sacabtumaynaay sabigiyo dhallaankaan rabaa inaan ku sooraaye taariikhda somalilan waa mid saafiya ee maanse laguma soo koobi karo waxay soo martaa badan maanse laguma soo koobi karo waxay soo martaa badani afartaa sifeeyaya haddaan hore u sii dhaafo sagaashankii markii ay hal qudha sare u soo dhaaftay soodintii dalkeennaba intuu saatir kuba uumay sanag iyo togdheer iyo gabilay saaxil iyo awdal salaliya ilaa balligubadle sooliyood weyne saafiyay hargaysa iyo sheekh sayla garabkeeda sallaxle iyo buuhoodle iyo saraar amase bullaxaarba booramadii nabadda lagu sugiyo sinaha balle cabbane dila iyo ilaa xeebta sugan saylac dhinaceeda saldhiggii burca laga dhigo laysu soo baxaa saldhiggii burca laga dhigo laysu soo baxay mar haddii sursuurooy gashay oo xornimo sibiqinoo dhaaftay oo aan suug ku soo dhicinnay oon saa ka nabad joogno saatirma haddii weeye haddaan isku salaan qaadnay inaan soo celinna maandeeq haddaan sacab kitaab saarnay oo aan sudhannay calankii beddelay kiisabaan horaaba saddex midable tawxiid lebaa saakaynoo sudhaan saddex midable tawxiid lebaa saakanoo sudhaane maskaxdiisii qiireen ogayn waxaynu soo dhaafnay ayuunbaa kaba sastoo dalkaba ilayn saluugtuune caqligii saliimaa yaqaan sadarka dhaareede oo suuradaha qur'aan iyo sunnaha aan sarbeebgelinne aan sifeeya marmar bay murtidu saacid leedahaa sabigiyo dhallaankaan rabaa inaan ku sooraaye taariikhda somalilan waa mid saafiyaaye maanse laguma soo koobi karo waxay soo martaa badan afartaa siraadaya haddaan hore u sii dhaafo si aydaan u daalin haddaan sooba yara koobo khadarow haddii aan si guud midha ka soo qaato sagaaluu haldheeraa ilaa saakadan aan joogno iyadoo saqiira cabdiraxmaan soo hadaaq baraaye daddah socodka waa tii u yidhi sayid cigaaluune sared joogsigeedii riyaalaa u yimi oo sooray dabadeede shalay tana siraan yaa fadhiyey waa sarkaal culuse mana muusaynu dooranno waa mas-uul sare suwaysow intaan soo marniyo saacaddanan joogno waxaan saban duruuf adag lahaa sibiq ku soo dhaafnay haddaan saafa hadalkoonina ganow sababtaan sheego oo aan ujeeddada salkiyo igsiyow saldhiggaan taabto u sujuuda eebbuhu runtii weyna saacidaaye u sujuuda eebbuhu runtii weyna saacidaa